sida aad warbixinta ku daawateen barnaamijka qaybtii hore wali waxa ka jira dalka Soomaaliya khilaaf iyo isqabqabsi siyaasadeed oo xoogan iyo waliba jahawareer haddaba si aanu arrimaha iyo xaaladda dalka wax uga ogaano waxa caawa barnaamijka marti inoogu ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo madax ka ah xisbiga Wadajir. Cabdiraxmaan ku soo dhawow BBC Somali TV. waan dhawahay maasanta xaraare. markuu ugu horeyso waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo qarsoodi ma aha in inta aad wareegaysay wadamada kala duwan ee qurbaha inaad dhaliilo badan dawladda u soo jeedinaysay waxa ugu dambeeyay dhaliishaadi ama eedeymahaagi shalay inaad tiri in dawladdu ay si khaldan u maareysay maamul goboleedyada iyada xiriirka kala dhaxeeyo maanta waxa heshiis gaaray Hirshabeelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya arrinta ma aragtaa tilaabo hore loo qaaday runtii aniga dhaliishayda hadda ma bilaaban xaraare dhowr bilood ka hor ay bilaabatay waxaana shaki weyn ka qabay halka loo wado dalka dawladda ay u wado haday tahay xiriirka ay leedahay gobolada haday tahay xaaladda amniga haday tahay isku haynta dalka haday tahay heshiisyada maaragtay la xiriira doorashooyinka iyo dastuurka dib u eegistiisa waxaan ku faraxsanahay in golayaashii sharciga ah ee baarlamaanka iyo aqalkii sare iyo maamul goboleedyadii oo dadkii siyaasadda Soomaaliya ka go'do dhan ah hadda in lagu soo wada baraarugay wixii aan ka digayay mudooyin dhan oo la hado warxaq meesha loo socdo beel degan maaha meel sax ma aha haday su'aasha ay weydiisay u soo noqdo runtii waxaan u arkaa dawladda wali waxay isticmaalaysaa xeelad xal uma jeeda meeshaas inuu ka soo muuqday xeeladaasna waa la yaqaanaa siyaasadda ama wax lagu yaqaano kala qayb iyo xukun waaye golaha iskaashiga dawlad goboleedyada murtiyadu jiray soo saareen si wada jiray u hadleen dabcan ayaga naftooda maanta heshiiska ay la galeen waare way ka jawaabeen dawlad goboleedyada manihi afayeenkooda runtii aniga laakiin waxaan u jeedaa dawladda inaysan abaaraynin xalka ay xeeladaysanayso xeeladaysiina u maleeymaayo in Soomaaliya hadda mushkiladeeda lagu xalli karo inay xalka wajahdaa fiican waxyaalaha isku hayaan ayaga dawlad goboleedyada waa arrimo qaran ee u yaala masiirka dadka Soomaaliyeed in lagu hadla taas muhiim ah laakiin in lagu dhaqaaqo waa kala qaybinaya oo mid baan xaq u soo jiidaya oo mid baan loo khulaaxsanaya u maleema in xigmad weyn ay ku jirto aniga lama Cabdiraxmaan sida iyo muuqato ama codkaaga ka dhadhansan karo wax walba oo la sameeyo inaadan u arkayn horumar ama tilaabo la gaar maalmaha dhan waxa ku jirta ololo dalalka qaarkoodna waa lagu diiday sida dalka Kenya oo kale in ololahaaga aad sii wadato arrintaadu ma mucaaradnimo iska cadba ma mid shakhsiyadeed ba ma sidaadaba musharax baa tahay 2020 soo socda horta mucaaradnimada London baa joogtay qarad in loo fahmo ma mucaaradnimada waa mas'uuliyad sida dadka xilka hayo kale ay mas'uuliyad u tahay mas'uuliyadeedana waa mid in la saxo halkay u socoto dadka talada hay halkay u socdaan iyo dawladda halkay u socoto in la saxo marka waxaan rabaa inaan ogaato adiga iyo dhageystayaashaba inaan mas'uuliyad qaran aan hayo taasoo ah inaan u taagnaado sixitaanka dawladda iyo qaladaadkeeda waa mas'uuliyad qaran oo dadka Soomaaliyeed aan ku matalo cid aan martigu ahayna ma jirto waxaan ku faraxsan oo ku celinaya hadeertaan oo muuqata hadeertaan oo soo baxday waxyaalihii aan ka digay hadda inay wada yimaadeen waxaan ognahay warkaaga ku jirtay in warbixintii saddexda maalin doodii ka socotay baarlamaanka xaaladda amniga ay loo jeedo xaaladii amniga ahayd ee waaqic ahayd laakiin waxa ka sii naxdi badan in golihii amniga qaranka Soomaaliya dhanba uu sa shirsaneyn madaxweynaha inta ku baaqay aan la shiri karin aysan isku imaan karin walaal wadanka wuxuu ku jira xaalad kale istaag ku jira wax la yiraahdo stagnation ku jira waa xiriirka dhan ayaa cakiran waxa hadda la isku dayaa xataa baarlamaankii naftiisii in la afduubo ayagoo dalbanaya inay madaxda qaranka hor yimaadaan la doonayo in laga marin habaabiyo oo laga leexiyo la doonaya anigu waxaan u arkaa hadii la isku dayo caburinta iyo cadaadiska iyo kala qaybinta iyo farqadaynta sii socoto inay keentaa dhici karta qarax aan la kontrooli karin ama waxaan ay dhahaan burkaan inay dhahaan inta soo dhan waxba cadeyma uma hayno waxa mar dhow sheegtay inaad tahay mas'uul waxaan arinta u gartay in aad mas'uul ka tahay hogaamiye ka tahay xisbi mucaarada xisbigaaga Wadajir yaa ku doortay ma loo maray in adiga hogaamiye u noqoto nidaam doorasho leh oo la wada ogyahay waan shaacina anaga Wadajir 2006 la shaaciyay bishii July ayaa la qabtay shirka golihiisa fulinta iyo gudigiisa dhexe intaba hogaamiye aniga lagu doortay ururka gudoomiye uu leeyahay anigu gudoomiye kama yahay laakiin hogaamiyihiisa ayaan ahay
haddana hadduu ilaah yidhahdo sanadka soo socdaan qaban doonaa congaresskii oo labadii sano mar la qabsida ku qoran dastuurkeena waxaadna ogaataa annaga xisbigeena wuxuu ka diiwaan gashan yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dhammaan shuruudihii loogu talagalo kuwa aad sheegaysana waan buuxinin haddaan buuxi lahayna mabana la rajistar gareeyaan oo nalama diiwaan geliyeen taas muhiimaddu marka maaha taas muhiimadda waxaa waaye dalka waxa u yaala in laga wada hadlo ayaa muhiima cabdiraxmaan waa gartay xafladaha qurbaha marka laga soo tago meeqa gobol oo dalka xisbiga ka dhisan yahay oo xafiisay ku leedihiin annaga xisbigeena taageerayaal hadda rajistaraysan oo online ku rajistar garaysan uu leeyahay laakiin shuruudaha xisbiga qasbayaba inaan deegaanada geyno Soomaaliyeed waana geynina hadduu ilaah yiraahdo laakiin hadda qaabkan ku socono wuxuu yahay maadaama tiknoolajiyada casri ay jirto inaan taageerayaasha gobolada Soomaaliya oo dhan inta de hadda dowladnimada Soomaaliya ogol marka laga reebo Soomaaliland hadda aan ogoleen dowladnimada Soomaaliya oo ka madax banaani sheegato ka madax banaan inta kale annaga waxaan leenahay xubno ku register garaysan qaab online ah ama sida afka Soomaaliga ada iga saaciid doona BBC-da ka shaqeeya laakiin online kaasaan ku wadnaa waan u bedeli doonaa waaqic inay xarumaha ka furnaadaan waana tal iska rababa xisbi kasta oo doorashada ka qayb galayo 2020 inuu yeesho waa shuruud la iska rabo waan u soconaa taas qorshaheena kamid tahay marka hore imaadan cadeyn inaad doorashada ka qayb galayso laakiin hadda waa gartana doorashada ka qayb galayso mar dhaweyd sanadka la soo dhaafay dhamaadkiisa Cabdiraxmaan waxa lagu xiray magaalada Muqdisho xarigaaga markii lagu soo daayana waxaad tiri hadal xanaf qabiil lahaa ma sidaas ayaa doonaysaa inaad dalka Soomaaliyeed ku hogaamiso walaal hada xana khaliif la anigu maan dhihin dacaayada laga sameeyo laga been abuuray aan ku sheego waxaad tiri aan ku sheego laakiin iga raali noqo waxaad tiri waan ku sheegay iga raali noqo waxaad tiri waxa guul abaad tiri anigoo marti la ii yahay sharciga in aan u hogaansanaado dadka martida ahaan inay sharciga ka hor imaanayaan hadalka ma inkaraysaa dadka Soomaaliyeed ay u taala aniga meeshan ka hadlayna waa la joogay fagaaro la joogayna ahayd anigu waxaan aaminsanahay meel Soomaali marti ku kala tahay inaysan jirin magaalo qof magaalo kala marti u yahay inaysan jirin aan aaminsanahay waxaan u taaganahay xisbiga u taagan yahay taas waa laakiin su'aasha kale ay weydiiso ah inaan kaaga jawaab waayo ma aha anigu doorasho ma u taaganahay mise ma u taagni taas waxay u taalaa guddiga fulinta golaha xisbiga wadajir u taalaa mid aniga go'aansanaya ma aha waxaan kugu celinayaa mar kale adkeynaya dacaayada la faafinayo inay sax ahayn anigu nin aaminsan aan yahay Soomaalidu inay isku deegaan tahay isku dad tahay isku diin tahay isku dal tahay deegaan lagu kala xigaana oo san jirin qof deegaan ka xirtaana inaysan jirin ayaan aaminsanahay laakiin anigu wali waxaan aaminsanahay in dad lagu eedeynayo inay yihiin dad ayagu dagaalyahaniin ah inaysan dagaalamaynin ay doonayaan inay cadaalad iyo sharci iyo discipline siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi iyo maxkamad ay ku aarsadaan ay ku doontaan maaragtay aniga message-kayga ahaa waxaan rajaynayaa message-kaaga inay Soomaalidu maqlaan ay kii hore saxaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay